السلام عليكم لما أصحابتو سلامتين مالكستا دونيدا كجوجتان كسو دوادا channelka حيدرتك وعشركي كوبي تبناد وتحانا oo ku saabsan barnaamijka Sony Focus Pro 16 casharadaas oo si free uga baxay channelkayga waxa idin soo jeedin doonaa anigoo Xeedar maanta waxaanu ka hadli doonaa wax kasta oo ku saabsan muuqaalkaaga codkiisa haddaynu cashirkeena guda galno waxaanu maanta ka hadli doonaa wax kasta oo ku saabsan muuqaalkaaga codkiisa waxaanu ugu horeysiin doonaa sidaad u duubi lahayd codkaaga waliba si cajiib ah sidaad ugu dari lahayd muuqaalkaaga background music sidaad codkaaga ugu sameyn lahayd fade in fade out sidaad ugu bedeli lahayd muuqaalkaaga cod haddaynu ugu horeysiino sidaad u duubi lahayd codkaaga waliba si cajiib ah markaad rabto inaad cod duubto waxaad u baahan tahay inaad adeegsato mikrofoonada lagu xiro kombiyuutarka codkaaga wuxuu soo bixi doonaa cod cajiib ah laakiin si haddaadan adeegsan oo aad ku duubto kombiyuutarka wuxuu noqonayaa cod aan fiicnayn marka waxaan rabnaa inaynu dul saarno muuqaalka kan codkiisa horena aynu ka tirtirno waxaan hore u soo marnay markii la kala goynayo laba track oo midna cod yahay midna muuqaal yahay waxa la taaban jiray u kadibna kan aad rabto inaad la soo harto ayaa la soo haraysaa kan kalena waad iska tiraysaa inagu hadda waxaan u baahanahay bas muuqaalka inaan la soo harno waxaan tagi doonaa si aynu cod u duubno audio track ayaynu waxaan tagi doonaa meeshan ay ku qoran tahay more kadibna waxaan tagi doonaa arm for record marka intaas ku soo baxdo waxa ka maqan halka calaamadii recordka kadib more ayaad ku noqonaysaa kadibna waxa leedahay edit visible button set kadibna waxaad ku soo dari doontaa arm for record okay ayaa leedahay hadda waa lagu soo daray markaad saa dhahdo ayaad cursor-ka waxaad geysan doontaa meesha aad rabto inaad wax ku duubto ama muuqaalkaaga meesha aad rabto inaad cod ka dul saarto tusaalahan meesha ugu horeysa aynu ka dhigaynaa kadibna waxaan leenahay record codkii waa la duubayaa codka aad rabto markaad ku duubato tusaalahan cod ayaad duubtay ku soo dhawaada channelka Xeedartay markaad duubto codkaad rabto ayaad waxaa leedahay pause kadibna waxaa ku soo bixi doonta daaqada tan dhan ayaan leenahay waa la inoo save gareeyay markaad intaas sameyso right click ayaa dhahaysaa kadibna switch ayaa tegaysaa kadibna normalize ayaa leedahay muuqaalkaaga codkiisa kor ayaa loo qaadayaa waa la habeenayaa kadibna codkaaga ayaad dhegeysanaysaa hadduu ku anfacona waad dhegeysanaysaa haddii kalena mid kale ayaad duubaysaa qaabka ayaa loo duubaa cod markaad adeegsanayso barnaamijka Sony Focus Pro 16 sidee ayaad ugu daraysaa muuqaalkaaga background music marka aad rabto inaad ku darto muuqaalkaaga background music waxaad ku khasban tahay marka hore inaad soo import gareysto music aad rabto inaad dul saarto muuqaalkaaga background music waxaa la lahaa codka yar oo khafiifka ah oo markaad hadlayso hoos ka baxaya lama rabo codkaasi inuu ka dheeraado codkaaga haddaad codkaaga iyo codka backgroundka aad wada sinto meeshii waxay noqonaysaa meel buuq ah qof wax kaa maqlay ma laha laakiinse waxa fiican inaad hoos geyso si dadka dhan ay ku maqlaan markaad soo import gareyso waad soo jiidi doontaa kadibna waxaad ka hoos marin doontaa codkaagii haddaynu start dhahno codka backgroundka iyo codkaygu aad u isleeg yihiin wax laga maqlay ma laha waad aragtaan wax la maqlay ma laha laakiinse waxaa loo baahan yahay inaynu habayno waxaanu tegi doonaa background musica aynu soo import garaynay kadibna calaamadan ayaynu jiidi doonaa ay gain ku qoran tahay hoos ayaynu geyn doonaa khafiif ayaynu ka dhigaynaa codka qaabkaan u sameeyo muuqaaladeeda kuna qurxiyo waxaan idin bilaabi doonaa waad aragtaa hadda caadi weeye codkayga iyo codka backgroundka waxaa hooseeya codka backgroundka marka looma baahna inuu codkaaga iyo codka backgroundka isla kaado marka qaabka ayaa loo sameeyaa inta dheeraadka ana qaabka loo tirtiro waad garanaysaa halkaas ayaa taabanaysaa kadibna inta dheeraadka ayaa iska jaraysaa oo isla kaanaysaa marka qaabka ayaa loo sameeyaa sida uu sameynayaa codkayga fade in iyo fade out fade in waxa weeye inuu codkaagu ku bilowdo si tartiiba fade outna waxa weeye inuu codkaagu ku dhamaado si tartiiba markaad u baahan tahay inaad codkaaga ku sameyso fade in waxaad tegi doontaa meesha ugu horeysay ee codkaaga kadibna waad jiidi doontaa adigoo inta aad ka rabto hadba geynaya tusaalahan inta ayaan rabaa inaan geeyo marka haddaan meesha ugu horeeya ka bilaabo codkaygu si tartiiba ayuu kusoo bilaabanayaa markaan rabo inaan codkayga si tartiiba ku dhameeyana meesha ugu dambeysa ayaa tegaysaa kadibna sida ayaa yeelaysaa oo soo jiidaysaa codkaaga wuxuu ku dhamaan doonaa qaab cajiiba marka fade in iyo fade out intaa weeye badanaa waxaa lagu sameeyaa background music iyo codkaagaba labadaba waad ku sameyn kartaa
fade in fade out intaa weeye. sidee ayaad ugu bedeli kartaa muuqaalkaaga cod? tusaale ahaan muuqaal mp4 ayaad rabtaa inaad kala soo harto codka bas aad inta muuqaalka iska turto. marka ugu horeysa waxaad soo import garaysan doontaa muuqaalka aad rabto inaad bedesho, aad cod bedesho, kadibna timelineka aad keeni doontaa. kadibna waxaad tegi doontaa file render as ayaad tegi doontaa. waxaad dooran doontaa mp3 audio. mp3 audio markaad doorato waa dhinaca formatka, dhinaca templateeskana waxaad ka dooran doontaa 320 kbps ayaad ku dhufanaysaa. kadibna waxaad leedahay customize template. markaad dhahdo kan waxaad geyn doontaa quality-ga meesha ugu sareysa, kana waxaad geyn doontaa meesha ugu hooseysa 300 kbps ayaad dooran doontaa. kadibna waxaad ka bedeli doontaa template-kaaga ama preset-kaaga magaciisa. waxaad u bixinaysaa tusaale ahaan tusaale 2. kadibna save ayaa leedahay. intani waxay kaa caawin doontaa inaadan markasta aadan halka imaan. mp3 audio ayaad tegi doontaa, kadibna preset-kaagaad ku dhufan doontaa, toos ayaa lagu geynayaa meesha aad rabto. okay ayaa leedahay, name ayaa imaanaysaa, magacaad ka bedeleysaa. intaasanu bixinaynaa. halkan waxaad ka bedeli kartaa meesha aad rabto inaad geyso muuqaalkaaga. kadibna waxaad leedahay render, waa lagu bedelayaa videogaaga, waxaa loo bedelayaa cod. open ayaa leedahay, dan dhegeysano. cod bas ayaa loo bedelay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. maanta cashirkeena inta ayuu ku egyahay. waxaa inoo ballanaa muuqaalkan muuqaalka xiga insha Allah.